xaalada abaarada ay ku jiraan gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan degmada Garadeg ay maanta ka dambeysay ka sii darayso ayaa guddida abaaraha ee degmada Garadeg iyo maamulka degmada Garadeg waxay kormeer shaqo ugu bixeen qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Garadeg kuwaas oo ka jirta abaar baahsan deegaanka ku dhaqan deegaanadan ay kormeer ku gureen guddida abaaraha iyo maamulka degmada Garadeg ayaa waxay gaarsiiyeen maryaha ay lagu talagalay inay dhaxanta ka xidhaan intii aan ku jirnay safarka iyagan guddida abaaraha iyo maamulka degmada Garadeg ay ku marayeen isla markaana TV qaranku qayb ka ahaa ayaa waxaan la kulanay qaar ka mid ah dadweynaha hore uga hayaanay deegaanadan isla markaana u hayaan dhinaca coodan leh oo haatan dib u soo degay gawaadhidina ay furayso dadka reer miyiga ah aan la kulanay ay u badnaay dad maata oo jilicsan isla markaana aan haysan biyo iyo cunto xoolihiina ay ka dambeeyaan aan wali soo gaarin ayaa maamulka degmada iyo guddida abaaruhu waxay dadkan u qaybiyeen huga laga xidha dhaxanta iyo timir iyo biyo ay ugu tala galeen inay dadkan nafta ku qabtaan daba qaar ka mid ah dadweynaha soo gurtada ah oo nagu warbixiyay xaaladda abaareed ku jiraan ayaa loo xaqiijiyay in ay xoolaha intii u badqabtay markay gaadhiga ku rareen ay kala badhinteen marka ay soo rareenna ay kala badhinteen iyagoo arrintaas ka hadlayana waxaa hadaladeeda ka mid ahaa sida tan haddana ka hayaamay oo tigay dhul shishe oo xuduudkaba dhaafay xuduudka galay haddeer ilaahay naga soo celiyey oo halkan aanu joognaa wixii aanu baabuurta soo qaadnayna wax nool kama roginin aan dad ahayn duuyadii baabuurkiiba lagama rogan wax nool lagu soo raray wixii soo socod la bidayna haddeer lix habeenna way soo socdeen aaga habarhashayna waa soo socdaan waxba ka socon waan iyagana baaliyo gurmad bay u baahan yihiin degdeg gurmadna ilaahay baa iska leh itaalka iyagana wuxuu noqday wixii maatada ay xayeeshka aan ku soo gurnay wixii waxa kale lagu soo guri lahaa itaal baan u weyn haddeertana biyo iyo baad badde waan u baahanaa inkastoo labadaba ilaahay bixiyo haddaa tiina degmada Garadeg ee noo tibiyana soo booqatay guddida abaaraha waxaanu ka codsanaynaa biyo iyo baad halkaas ay maatadii joogtaa wixii aanu ku sidnayna waa baqtiyeen sidoo kale qaar ka mid ah guddida abaaraha ee degmada Garadeg ayaa iyaguna ka warbixiyay ujeedka safarkoodan iyagoo ugu baahan qurbo joogga u dhashay degmada Garadeg iyo ganacsatadaba inay ka soo qayb qaataan xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadoodii iyagoo arrintaas ka hadlayana waxay dhaheen sida tan markii hore hayaamay markaa isla markaa dadkii waxay joogi kari waayeen xaggiisa oo waxa biyo la'aan baa ayaa ku dhacday iyo dee xag si walba xoolaha oo aad uga baxay marka intii yareed la soo noqdeen waxay la soo degeen meelihii islaaxeen dadkiina ayaa yaala oo deegaankiina ayaa idin ka warhaynaya marka haddaan nahay guddida abaaraha iyo maamulka degmaduba iyo saxaafadiiba waxaanu maraynaa deegaamada waraantoodii dhulkii ay yimaadeen waa dhul xaaluf oo ay markii horeba xaaluf ahaanta uga tageen weeye biyihiina way ku yar yihiin masaafo aad u dheer bay biyuhu jiraan waxaa muuqanaysaa in hawshii hore ee abaarta haddaan ilaahay naga jebin ay labalaabmayso dadaalkii loogu jiray iyo baahidiiba ay intii hore ka korodhay ayaa muuqanaysa oo dhinacii ay ka yimaadeenna baahidii waa kasii jirtaa dhinacana u yimaadeenna baahidii waa ka jirtaa dadaal badan baa lagu jiraa fadhi ma yaallo sidaa daraaddeed baan fadhiisa weyn anigu maanta deegaanada ay guddida abaaraha iyo maamulka degmada kormeerka kusoo mareen waxaa ka mid ahaa Faraguul Sincaro Wadheli Fadhiyar Kowsaweyne Qori Dheere Tuur Cabdille Shiisha oo Madarsare Bayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg